إلهي بالها حديث القدس إن آذنوي أفلقاذيي ونا إدبايا زمن كسيدتكم أنتو أفلقاذيان ما سدن كو غلي وقتiga سدن يغلي ما يرادين ما يرادين حاسدن كو غلي وقتiga halka ay dhigay waqtiga maanta dadka oo dhan waxay leeyahay nolosha waan fahmi laanahay nolosha waxaan u fahmi laanahay waa maxay عمر بن الخطاب الله رالي كان نقضي ayaa oran jiray nafteena xisaab inta la in xisaabin amalkiina شر يا خير واحد قبته مالك ميزان كسر بوق يقلن قادو صباح دي مركات كعدي الى قبل كوكو دعايه شركاغينا قر خير واحد سميسنا قرو اس حسابي هذا ادونك دوشيدا اسكو حسابيسد او ادونك دوشيدا عملكاغا ميزان كسارتد waxa ku fududaanaysa xisaabta aakhira ku fududaan الله انه فضل ذي marka waqtigeenu waa tharwadeena ilaahayna siiyay yaan dayicin inaga maanta dadkeena zamankan waxay yiraahdaan waqtiga halkeen ku soo dilaa soo ma yiraahdaan gaaladuna waqtiga qiimihiisa intay garteen ay yiraahdaan waqtigu waa lacag hadii wadannada reer galbeedka wadada aad ku socotay ay ka lunto oo jidka aad mareysay aad ka luntid fursad u heli maysid qof inuu isku ka taago ku tilmaamo dariiqi xaq uu ka xigay ama magaalada socotay inaad ugu tilmaamo heli maysid way xukun inta gaariga halka aan joojinayo wadada dhexdeeda waqti bay ugu socdo ku leeyahay waqtiga qiimihiisa bay fahmeen iyaku deena adduunyadii bay geliyeen khayraadkii adduunyada ku jireen ilaahay waa u soo saaray فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء markii amarkii ilaahay ay halmaameen baraarujintii lagu baraarujiyay diinta markay ka jeesteenay iska dhaga tareen baa ilaahay yiri adduunyadii albaabadeedii baan u furnay baa ilaahay yiri yaka waqtigoogii halkay geliyeen dhulka khayraadkii arlada ku jiro dhan bay la soo baxeen waa kuwa maanta adduunka dhan ku guumeysanaya ee ku hogaaminaya inagana maanta muslimiintu wuxuu leeyahay qofka muslimka waqtiga halkeen ku soo dilaa maanta إلهي بالها حديث القدس إن آذنوي أفلقاذيي ونا إدبايا إن آذنوحو إقود دبايا مركو يري إلهي ويل بو يا شيء إلهي وحو ليا أنو ويل ملهي ومدلين لا يمنا دلا منا دلو كلبانا هاي كلي إن آذن با إلهي ليا وي أفلقاذيي وي أفلقاذي وحو يقو أفلقاذين يا يسب الدهر وأنا الدهر الأمر بيدي أقلب الليل والنهار إن آذن habeenka iyo maalinku aflagaadeynaya oo zamanka ayuu caayaya zamankuna ba ilaahay yiri waa aniga habeenka iyo maalinta aniga bedelayo ana keenaya ba ilaahay yiri zamanka sidee dadku maanta u aflagaadeeyaan ma sida ku galay waqtiga sida ni galay ma yiraadin ma yiraadin xasadan ku galay waqtiga halka ay dhigay waqtiga iga jeestay buu kooran waqtiga iga jeestay waqtiga sida ay baday waqtiga iga xun waqtiga fahmi lahay waqtigu muxuu yahay ilaahay baa kula yasubbu ad-dahra wa ana ad-dahru ina aadan zamanka ayuu aflagaadeyn oo leeyahay zamanka iga xun zamanka xun zamankii baa iga jeestay waqtigii baa iga jeestay waqtigii baa adig kula haya maanta ilaahay wuxuu leeyahay zamanku waa aniga amarka gacantaydu ku jira habeenka iyo maalinta aniga ba bedelayo keenaya amarkuna gacantaydu ku jira kaan faqiir ka dhigana cid qani ka dhigi kari mayso kii aan qani ka dhigana cid faqiir ka dhigi kari mayso kaan kor u qaada cid hoos u dhigi kari mayso kaan hoos u dhigana cid kor u qaadi kari mayso كان مدح كدغنا عيد مدحنimada ka qaadi kari mayso كان عزينا عيد ما duleyn karayso كان duleeyana عيد ma cizeyn karayso كان hadeeyana عيد ma weecin karayso كان halleeyana عيد ma hanuunin karayso كان anigu aan khayr aan siyana
cid shar u keeni kari mayso amarka ayaa leh allah baa leh waxba zamanka ha aflagaadayn waxba makhluuqana ha qabsan oo ha odhan hebel baa halkaa ii galay buu yidhi maalin mid dee iska soo saar hebel baan magaalada ka mari hebel baan magaaladii u daayay buu yidhi haye hebel baa nolosheeda ka xun hebel baa halkaa ii dhigo sidaa ii galay zamanka adiga kula haya dee anna zamanka sidaa ii galay buu ka odhan may sidaa ma aha qofka muuminka iimaanka la waa inuu umuuraha waa inuu idhahdaa hadday dhibi ku dhacdana waa inuu idhahdaa dhibaatada igu dhacday waa dunuub anigu aan galay weeyaan oo adduunka lagaga goynayaa hadday barwaaqo ilaahay uu ku siiyana barwaaqada ilaahay baa kuu qadaray haddii walaalka ilaahay u nicmeeyana waxaad tidhahdaa nicmadda ilaahay kuu nicmeeyey hani allaka waan kuu haneeyey hadday walaalkaa balaaye masiiba ku dhacdana waa la tacsiidayaa waxaa la yidhaahdaa insha allah balaayada waad ka bixi doontaa walaal qadarka waa inaan aaminaa zamanka ha aaminin ayaad aamini ilaaha zamanka abuuray cilaaqa la yeelo abu darda iyo salmaan qiso dhex martay baan nii sheegin salmaan farisi buu ahaa radia allaahu canhu wuxuu damcay markaa inuu guursado abu dardaayo markaa uu nebigu walaala uu ka dhigo walaaleeyey ukhuwat alislaam ayuu ku yidhi abu dardaayo reerkaa gabdho fiican bay leeyihiine gabadh ordoo iiga doon waa hagaag markaa dibadduu ku sugayaa aqalku aqal weyn maaha waa aqal yaroo cariisha abu dardaaba aqalkii soo galo waa la soo dhoweeyey waa qoys markaa yaman ka soo guuray oo gabdho wanaagsan ilaahay siiyey marka abu dardaa baa yidhi waxaan inantiinaa heblaayaan u socnaa oo ayaad u rabtaa walaalkay salmaan alfarisi baan u rabaa markaa bay idhahdeen salmaan inantayada siini mayne laakiin adigaan ku siinay ku yidhahdeen gabadha weligeedii mar hadduu ku yidhahdo waan ku siiyey uu ku siiyey ogow khalaas waa xaaskaagii laanna waa saddexda nebigu yidhi saddex kaftankooguna waa dhabtooduna waa dhab islaanay waan ku furay kaftan ma gasho way furantay khalaas nebiga ku salliya inantaydii waan ku siiyeyna kaftan ma gasho waa sidaad u siisay khalaas walciyaadu billaah diinta waan ka baxay qofka hadduu yidhahdana waa u ka baxay ogow walciyaadu billaah marka abu dardaa uu yaabay gabadhii khalaas isagaa la siiyey siduu ugu sheegay walaalkii saaxiibkii salmaan wuuna sugayaa salmaanoo isna caroos buu isku diyaariyey carooskooguna berigaa maba adkayna gabadha intoo laysa siiyo ayaa isla markaaba saxaabiga aqal yar loo tartiibinayay habeenkaaba uu aqal galayay waxaynan lacagaha iyo daaraha iyo tumashada iyo huteelada iyo buuraha la iskala dhacaya maaha ee macsiyadda lagu dhisaya maaha nebiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam inantiisa faatima markuu cali uu dhisaayey ayagoo maskiidka ka soo wada baxo isgarab socduu nebigu ku yidhi cali ka warran faaduma haddaan kuu dhiso markaabuu sii jeesto uu ka xishooday faaduma waan ku siiyey buu yidhi caroosna waa taysa soo diyaaray buu ka yidhi uu socday inantiisii buu nebigu u tegay faatima aabbo waan ku dhisay dee yaad ii dhistay cali baan kuu dhisay radia allaahu canha way aamustay way xishootay markaabay hadasho aabba ma hadlaa hadal buu ka yidhi dee cali baad ii dhistay haa cali yar calool buuran yahay haye habeenoodna uu leeyaho habeenkii indhaha aad wax ugama arka bay ku tidhi markaabuu nebigu ku yidhi faatima laqad zawajtuki wa innahu la aqdamu ummatii silman wa akharuhum cilman wa acdamuhum xilman buu ka yidhi faatima ninka aan kuu guriyey waa ninka islaamnimada ummaddeeda ugu soo horreeyey oo ugu soo hor islaamay waana ninka ummaddeeda ugu cilmi badan waana ninka ummaddeeda ugu dulqaad badan buu rasuulku yidhi barkintaana qaado qadiifadaana qaado weelkaana biyaha ku dhaansada caawana waan ku hoynayaa diyaar garow buu ka yidhi inaku iminka gabdhaha waxba kuma darnee
حوما كسبنا سوما تبادن سومالي مركي دhisayso wiilkay kharashka badan ku bixiyaan nabigu inantiisi Faatimo markuu dhisay uu raaciyay barkin buu siiyay gogol buu siiyay weel buu siiyay marka guurkoogu uu fududaa keen zamankan cadaabka maaha oo fududaa noloshu way fududay guurka hadii la fudaydiyay bay culimadu leeyihiin zinada inay dhalinyaradu ku dhacdo ayaa adkaan hadii guurka la adkeeyo waxa la fududeeyay ogow zinadii baa la fududeeyay marka guurka inaan fududeeyna diyaar ma unahay waa sababta kaliya bay culimadu leeyihiin fasaadkan kula dagaalami karno guurkana la badiyo in la fudaydiyo walibana Salman Farisi banaanku taagan yahay walaalkii Abu Darda ayuu sugayaa Abu Darda baa soo baxay marka Salman baa yiri bishaare wuxuu wixii meesha ka dhacay ina kaaga warramo waan ka xishoonaya buu yiri wara xishoona ii sheeg ma la yeelay mise waa la diiday waniga gabadha adiga waa lagu diiday laakiin ana la isiyo aroosa buu yiri ana ba aroosa markaasuu qoslay wuxuu yiri ka xishoonaya adiga ma hay waa aniga buu waayo calaf ilaahay adiga ku qoray calafkaagi samada lagaaga qoray iyo adiga anuna dhex socday buu yiri ka xishoon adiga ma ha buu waa aniga ee walaal adigana Allah ku barakeeyo zamankan arinta ma dhici lahayd wala isku rogman laha Soomaa waa adeer dhigtay ayagu waxa la baray waradeer amar ilaahay baa adduunka socda wixii ilaahay qadarin baa adduunka ka dhici wax kale ka dhici maayo marka zamanka ayaan waxba aflagaadaynin zamankan nidaamka zamankan waa nidaam ilaahay xaqiisa ka socda ilaahay xidhiidh fiican haddaan la yeelano nolosha adduunku way noo macaanaan maanta dadka oo dhan waxay leeyihiin nolosha waan fahmi laanahay nolosha waxaan u fahmi laanahay waa maxay xidhiidhkii innakii ilaahay noo dhaxeeyay baa meesha ka baxay xidhiidhka haddaan hagaajisano nolosha adduunkan iyo taakhira ilaahay baa noo hagaajin ilaahay baa quraankiisa inoogu sheego yiri waman yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra qofka ilaahay ka baqa ilaahay ka cabsada umurtiisa oo dhan waxaan ka dhigaynaa fudayd